asxaabay muddooyinka ku siman 15 cisho dukaan qabtay mooyaane kulli dibadda uma bixin oo marka dukaan u baxayso maxay ahaydey hawl badan bay ku qaadanaysaa marka insha Allah bal dibadda u baxaya maanta ilaa waxaan soconayaa masaafo dhan waayo dukaanka jaarkan ka soo noqday mooyaane meel kale ma aadi jirin laakiin bal supermarket xaggaas baan tagayaa xoogaa waxaan ka soo eeganayaa bal alaab yar soo iibsanayo bal dibadda u baxaya dibaddana bal waxa ka dhacaya haddii Ilaahay ka dhigo waan idin tusayaa iyo si wax u socdaan bal insha Allah marka dibadda u baxo sidee magaaladu u egtahay anigu magaalada waxay la noqotay khaax yani filmaadkii khaaxda ahayd la daawan jiray ayay ila noqotay marka insha Allah ila socda waxaan u baxayaa dibadda hadda la socod wanaagsan horreynta waxaan sameynaa waxa weeye marka intaanad bixin waa inaad warqadanaad ma garanaysaa maxay hay'adaad bixiso warqadan waxay ku cadeynaysaa waxaad u socoto iyo halkaad ku socoto dukaan inta socoto iyo hadii wax kala socoto marka yani date-ka lagu qoriyo magacaaga iyo address-kaaga marka waxa weeye waa inaad warqadan bixiso horreyn magacaygan ku buuxinayaa magacaygan ku buuxinayaa halkaas waa goortii aan dhashay halkan waxa weeye waa address-ka guriga aad ku qoraysaa yani guriga halkaad u socoto iyo maxay ahaydey address-kiisa halkaad ka timi in la hayaa waa muhiim marka address-ka xaafadan ku qorayaa who do please count card يعني address-ka gurigan ku buuxiyay waxaad u socotaa halkan waa halkaas tana dukaanka waxaan iska dhigayaa markaas idin dukaanka u socda tana saxaya marka taariikhdii aad baxayso waxaan ka helnay halkan waxaad ku buuxinaysaa waa saxiix dalka gelinaysaa marka waxa weeye taariikhda iyo halkan waxa weeye waqtigaad baxayso marka maanta bishu waxa weeye waa abriil weeyaan abriil kowdeedii 2020 saacadaad halkan ku buuxinaysaa waa 7:00 galabnimo 7 habeenimo iyo waxbaa raaca iyo barkii wax noocaas u bixin markaan kan la'aanteeda baan sidin bixi karin asxaabta imika gurigii waan ka soo baxay waxaan eegaynaa sida dunidu ay tahay adduunka la kala shaqaysan yahay anigu maskiga ma isticmaalo maskigu mar walba wuxuu kaaga baahan yahay yani wax yaro cudurkii buu soo ururinayaa baa la yiri maskiga dad baaba garaas kooranaya isticmaalna dhaqaatiirta qaar baaba imika jiri cimaamadaada ay maartay dhaxanta baashaada ay dhaxanta inaad iska qaadato marka tareenka raacayso dadka afka kaga daboolato taas ayaa lagu qaatay marka guriga waan ka sabaxay ka xaafadii wata waxaan ku socdaa balin dukaan xaggaas ku socdaa hadduu furan yahay waan soo eegi doonaa كل يوم كاتو تبدي هبينمو هبين ندينا ما هو قلبه وتدبدي هبينمو مركاتو تدبدي هبينمو أصلاً سجاجة يعني حندوني بل إنان دكان كاسين تدبدي فري أول سجالك فرنان شري لكن يمكن ما قرنا إن دويد ما بحن سجالك إنه فرنان دونه إن كلا الله أعلم ما هي هذي وايو يمكن بندو ولا سور جد كلام هذا وقت جاري فرين صبحي يا كلا أي فرين ينقل كتبين على فرنان بالله جابا كان ساعد وتدبدي استديدي هبين ما أحبك السقيسة حي هذي بلون شو يقدر النصي وحنقان نقص عنه يا حبت إلهي أورتي نولي إلهي أورتي ماشي مري مايو إيه يا سا إليك جاري كواس هيك صار بحمارته لكن إيه كانوا تذكر قارب إيدك بقانو إيدك ما بقى لك يصير waxaan daaima salaadii weysadii aad weyse qabad soo baxaysaa salaad baad tukataa
eedooduna waxa ma cunto laakiin sidee yacni waxay ku marmarinaysaa maxayday way ku leefleefaysaa mad garanaysaa gaalada dhaqankooda eedooduna leefleefkaasaan diidaa adaga arkaya dunida cida meel waad ga arkay meesha wax maraya ma jiraan yacni meesha lagu kala teginayo yaa caadi baa lagu kala harnaa hadda ay kale dadka soo roowixi jira shaqaalaha tareemada way buuxi jireen markaa in koox buuxaan ma lahan waxa wali waa lagu kala yaacay meesha inagu kala wada leediniyo corona banaanka fadhiyo dadkina daaqada ay ka daawanayaan arso baxda soo haya yaa balimka markaa waxaan soo eegi doonaa iska yara farabash yaa dhibaatada jirta waxa weeye dadkii oo kala shakisan anugu dadka cadaanka waan ka shakisanayba waxaan isleeyahay talo arrin wixii sida yaa dadka guriga iska jiraan arkaysaa yacni cid soo baxaysaa ma jirto xoogaa dhaxanina waa dhacaysaayo indhaha iga gashay yaa marka cid soo baxaysaa ma jirto cid u tagaysaa ma jirto ninkuna qofkuna markuu baxayo iska bixi maayo warqad baad ku baxaysaa iyo saacadaad baxaysa saacadda soo noqonayso ayaad ku qoraysaa warqadda marka cid iska baxayso oo magaranaysaa yacni inta iska baxdo iska soconaysaa ma jirto midmid teelteela ayaad arkaysaa laba qof oo wax ka badan oo socdaal kamid laakiin labada qof baa dee hal mar aad arkaysaa way adagtay inaad laba qof oo caadi ah aragto ama laba qof oo maxay aad aragto caadi ah socda marka waxa weeye waa iyagii baa teelteel noqday dadkii baa teelteel noqday aad arkaysaa labada qof baad arkaysaa labada yaa xanuunka anaga magaaladeena wuxuu marayaa iminka magaaladeenu kaliya maahan si heer qaranaya national wuxuu marayaa ilaa 24 ilaa 52 uu marayay maran eegay waxay hayday maran eegay ilaa 52 buu marayay marka wad arkaysaa dhulku waa cidlo laamiyadani marna uu buuxsami lahaayeen awli buuxi jireen laamiyadani basasku iyagoo maran bay iska maraan tareenku isagoo maran buu iska maraa yaa balan ku soconaan يعني وضرك سيد هاي حالده ما ركتها هل كان يبرح جرتي مركب ما ركته أرقب بيرها هي أفطر فيها وحبها لكن أرقب معها عادية تذكر تلتال بوس عدان waxaan mid xaalad inay iminka soo yara hagaagayso maalmo hore 15 cisho ka hor xaaladdu sidee ahayd hadda ma aha waayo maanta waa bisha April kowdeedii 15 Maarchna bandigu waa la soo rogay lockdown ku 15 April buu dhacay marka iminka waxa weeye waa iminka waxa weeye yani waa April kowdeediina marka lagu jiro April kowdeedii waxa weeye bandigu xoogaa waxaad mudaynaysaa soo yara rooraanayso magaaladu sidii hore soo yara dhaameyso tareenkan iminka u gudbaya tareenkan si raaci lahaa halkan wallahi waxaad buuxi jirtay mar kasta halkaas way buuxi jirtay dadku tareenka ku sugi jireen dadka tareenka train stationki halkan mar walba buuxi jirtay dadkaas sugi jiray tareenka in la kala carar kaas tareenka ka soo baxaya yaa tareenka iska sugi doonaa insha Allah markii noo yimaado aan waqtiga eegno xilliga imanaya tareenku waqtiga imanaya aan soo ogaado marka hore tareenku xilliga imanayo aan soo ogaado dadku kala shaqeysan yihiin anoo ka shaqeysana لكن يعني tareenku waxay imanayaa kusoo dhaweeyay tareenku waxay imanayaa 6 minutes
iminkaan degayaa hal bus station baa hadhay meeshaan ku degi lahaa yacni maxay ahayday tareenkana waad aragtaa cidima saarna xabad ilaahay abuurtay oo saaran tareenka ma jirto dukaankiina waa kaa iminka kaa buluuga halkaa kaa buluuga weeyaan markaa iminkaan tareenkaan tegayaa waad aragtaa meesha sida wax la yidhi yacni maxay ahayday meesha waa lagu kala teginayo xanuunkii coronavirus wuxuu yidhi inagu kala wada inagu sida joogi mayne dukaankiina waa kan waxaa laga yaabaa inuu dukaanku xidhan yahay baa laga yaabaa anugu hubsanaas lahaa dukaanka wax yar baan usoo doontaan dooniyada ka iibsado markaa waxa weeye waxaan eegaynaa bal inuu dukaanku furan yahay iyo in kale dukaanku hadduu furan yahay yacni wixii aan doonayay ayaan isoo iibsanayaa ma garanaysaa markaa waxyaabihii aan doonayay baan doonayay inaan soo iibsado dukaankaan eegaynaa adduunkoo lagu kala tegay tareenka keligii iyo nin kalaa saarnaa waxaan u malaynayaa dukaanku inuu xidhan yahay saxaabi dukaanku waa xidhan yahay waad aragtaan awal saa muu ahaan jirin yacni madowgaa muu ahaan jirin wadaleer buu ahaan jiray calaamad casna ku xidhan tahay hagelin baan malanaya inay tahay markaa wuu xidhan yahay tareenka kalean gurigay ku celinaya iska sugaya insha allah waayo dukaankii wuu xidhan yahay waa kan dadkii cid gelaysa cid kasoo baxaysa ma jirto waxaa lagu xidhay soo gelin ba hal ku qoran tahay baa lagu xidhay waxyaaba yarra kale aan doonaya inaan ka iibsadana way jireen iminka waxa weeye waa 8 habeenimo qoraxduna iminka sii dhacaysaa markaa waxa weeye ma iska sugaya tareenka kale imanayaan sugayaa waa in xaggan istaago markaa xaggan ka imanaya asxaabay hadda dukaankii baan tegey saad arkayseen wuu xidhnaa markaa iminka guriga baan iskaga noqonayaa berri subaxan haddii ilaahay ka dhigaano imanaya waxaan doonayay dukaanka inaan internet yar iyo wax ka hagaajisto oo iga xun markaa maxay ahayday waxa weeye intan noocaas mar haddaad baxayso dibadda aad u baxayso maanta ayuuma dibadda usoo baxay sidii aan si caadiya dibadda ugu soo baxay dukaan magaalada maxay ahayday dee cornerkeeda ku yaalla aan imi markaa maxay ahayday waxaas lahayahay dee bal intan waxaas bal dadka la sii wadaag dadkii aan arkin dee yacni xaaladdan ku sugannahay dadka yacni dee aan iminka xaggii somalilan jooga ama soomaaliyaba jooga bal xaaladda la wadaag baan islahaa yacni say wax yihiin iyo sidaad u xidhxidhan tihiin iyo magaranaysaa idinkana waxaan idinku baaqayaa guryaha inaad joogtaan yacni xanuunkan waa xanuun khatara dadkiina waaweyn dhallinyaradiina lama yaabo inaad magaranaysaa inaad iska difaacdaan ba laga yaaba laakiin xanuunka haddii aana doonayn in ayeydaa qaado habaryartaa oo qof weyna ay qaado hooyadaa oo qof weyna ay qaado yacni soo bax dibadda soo bax dad doonaysa in ayeydaa qaado u dhimato xanuunka waayo qofka weyna xanuunada la nooli xanuunkan wuu u dhimanayaa iskamana difaaci karo marka haddaad jeceshahay inuu familkaaga xubno ka mid wax saameeyo dibadda usoo bax baan ku leeyahay haddii aad jeceshahay familkaaga ama familkaaga aad ka naxayso waxaan ku leeyahay guriga joog war guriga jooga oo iska daaya bixitaanka inta ay xaaladdu hagaagayso 2 kiis baa laga helay baan maqlay laga yaabo inay kiisaska aan cidiba ogeynba kiisas kale ay jiraan marka waxaan oran lahaa gurigiina iska jooga ha bixbixina socodka yareeya meeradaha yareeya xanuunkan ma qaadi karno Soomaali baynu nahay maxay ahayday sida dalalkan ma nihin yacni guryaheena waad iska ogtiin xaaladooda guri 4 qola ama 5 qola ama 3 qola ay 10 qof ku wada nool yihiin ama 5 guri 4 qola waxaad arkaysaa 15 qof ku nool yihiin marka gaaladani waxay naga duwan yihiin guri 2 qola ay 2 qof ku nool yihiin ma fahanto oo ka fadhigii suuligii soo raaco oo 2 qolo hurdo leh ay 2 qof ku nool yihiin inaguna guri 2 qolo baan 4 qof ku nool marka yacni ma qaadi karna xanuunkan 4 gurigii kastana Soomaali baan noo 10 qof baa ku nool asxaabay hadda dukaankii baan tegey saad arkayseen wuu xidhnaa markaa iminka guriga baan iskaga noqonayaa berri subaxan haddii ilaahay ka dhigaano imanaya waxaan doonayay dukaanka inaan internet yar iyo wax ka hagaajisto oo iga xun markaa maxay ahayday waxa weeye intan noocaas mar haddaad baxayso dibadda aad u baxayso maanta ayuuma dibadda usoo baxay sidii aan si caadiya dibadda ugu soo baxay dukaan magaalada maxay ahayday dee cornerkeeda ku yaalla aan imi markaa maxay ahayday waxaas lahayahay dee bal intan waxaas bal dadka la sii wadaag dadkii aan arkin dee yacni xaaladdan ku sugannahay dadka yacni dee aan iminka xaggii somalilan jooga ama soomaaliyaba jooga
bal xaaladda la wadaag baan islahaa yacni say wax yihiin iyo sidaad u xidhxidhan tihiin iyo magaranaysaa idinkana waxaan idinku baaqayaa guryaha inaad joogtaan yacni xanuunkan waa xanuun khatara dadkiina waaweyn dhallinyaradiina ma yaabo inaad magaranaysaa inaad iska difaacdaan ba laga yaaba laakiin xanuunka haddii aana doonayn in ayeeydaa qaado habaryartaaga oo qof weyne ay qaado hooyadaha oo qof weyne ay qaado yacni soo bax dibadda soo bax dad doonaysa in ayeeydaa qaado u dhimato xanuunka waayo qofka weyne xanuunada la nooli xanuunkan wuu u dhimanayaa iskamana difaaci karo marka haddaad jeceshahay inuu familkaaga xubno ka mid wax saameeyo dibadda u soo bax baan ku leeyahay haddii aad jeceshahay familkaaga ama familkaaga aad ka naxayso waxaan ku leeyahay guriga joog war guriga jooga oo iska daaya bixitaanka inta ay xaaladdu hagaagayso 2 kiis baa laga helay baan maqlay laga yaabo in kiisaska aan cidibo ogeynba kiisas kale ay jiraan marka waxaan oran lahaa gurigiina iska jooga ha bixbixina socodka yareeya meeradaha yareeya xanuunkan ma qaadi karno Soomaali baynu nahay maxay ahaydey sida dalalkan ma nihin yacni guryaheena waad iska ogtiin xaaladooda guri 4 qola ama 5 qola ama 3 qola ay 10 qof ku wada nool yihiin ama 5 guri 4 qola waxaad arkaysaa 15 qof ku nool yihiin marka gaaladani waxay naga duwan yihiin guri 2 qola ay 2 qof ku nool yihiin ma fahanto oo ka fadhigiyo suuligu soo raaco oo 2 qolo hurdale ay 2 qof ku nool yihiin inaguna guri 2 qolo baan 4 qof ku nool marka yacni ma qaadi karna xanuunkan 4 gurigi kastana Soomaali baan noo 10 qof ka ku nool ama 15 qof marka waxaan idin leeyahay guriga jooga yacni ha ka soo bixin guriga iska ilaaliya xanuunkan gaaladan guriye sameysteen qalab boo sameysteen wax kasta u sameysteen yacni ma gaalada halka heerka gaadhin ma gaari karayno haddana iyagoo heerka gaadhay ayay la tacaali kari laayeen marka guryihiina jooga tareenkii baa imika soo socda waad aragtaan yacni tareenkii baa imika soo socda waxaan idin leeyahay guryihiina jooga war xanuunkan ma qaadi karayne bulshada niyow la wacyi geliyo insha Allah si shargareey muuqaalkan oo gaarsiiya dadweynaha Soomaaliyeed subscribe iyo share muuqaalkan ilaa aan bixiyo insha Allah share iyo subscribe tana u saara ma fahanteen waa vlog-gii ugu horeeyay aan sameeyo waliba vlog-gan waxaan doonayaa inaan ka sameeyo xanuunkan yacni dhacay inaan ka sameeyo marka yacni waa inaad gurigaaga joogto gurigaaga adiga gurigaaga wax ku dhaama ma jiro inagu xanuunkan ma qaadi karayno marka waxaan idin leeyahay